xaflad dhiirigelin ah oo loo qabtay arday ku guuleysatay tartan aqooneed ka socday hoolka sare ee dugsiga Alfaaruq ayaa maanta ka qabsoomay isla dugsiga gudihiisa. Ujeedada tartankan ayaa ahayd sidii loo ogaan lahaa heerka aqooneed ee ardayda laguna dhiirigeliyay sidii ay tartanada guuliga soo hoyn lahaayeen. Haddaba tartankan oo socday muddo ku dhow bil ayaa guushu waxay ku raacday group ka mid ah fasalka Form 4. ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay Injineer Faarax Yaasiin Khadaad oo ahaa shakhsigii garsoorka ka ahaa intii uu tartanka socday kana warramay caqabadaha ka hor yimi intii uu tartanka waday. si toona garaaco gurigiis markaa uu tago su'aal ka soo qaato computer dib ugu qoro time ku adjust gareeyo answerkoodii diyaariyo waxa laga yahay walba aan casharkii iskuulka aan diyaarin waana si eegin ilaa 12 barkay koodii inuu gaadho marka qaar kood labada ugu gaari jirtay tartamada qaar koon diyaarinay marka qaar kood laba galaas aan tartan wada gelin bad meel isugu keenaysa Form 4 iyo Form 3 Form 1 iyo Form 4 ban hal slide ugu wada qabto waxa ku baxaysa maskax inaad cabaar fadhiisato ka fikirtay war waxaan iyo saad hal tartan meel ugu wada qabata oo cadaalad ah oo aanay hadhow wax weey iyaguna wax ka sheegan in ardaydu wax qaybaan oo iyagoo tartamaya oo aan la qasbin ficil xaqooda ka yimay wax ku qaybaan qodob saddexaad diin ay ardaydu ogaadaan oo ay bartaan xakam in wax la xukumo in wax loo diido in wax la siiyo in wax weey cid ka badiyaan إيه قرنا أحمر تضرب وغدا بلوبة هاي waxa ka soo baxaya de fan tacaamul maca naas sida qofka bulshada la dhaqmo karo ayaa ka soo baxaya ciyaaraha aad loo xiiseeyay oo dhalinyarada oo taqaana waxa jirta ciyaar ay wada ciyaaraan kooxda iyagu groupka wada oo alamiteen la yiraahdo marka baa shorta tartanka alamiteen waxaanu si alamiiteena inaynu iskuulada weyn iyo dalka iyo gobolka dhanaynu tartan la galo intaas inuu alamiteen sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay ardayda qaybaheeda kala duwan ugu dambeyntiina waxa hadalka soo xiray maamulaha dugsiga Alfaaruq Mudane Xirsi Xaaji Taahir marka tartan la qabto waxa weeyaan qoluma soo baxaysa qolada soo baxaysana abaalmarin yar oo la siiyo wax micnaa u sameynaysa ma jirto waayo guuli waa maxay wata lagaga dambeeyo Soomaa guushu taa joogtid maaha markaasi waxay wata lagaga dambeeyo ugu dambeyntiina waxa halka shahadooyin lagu guddoonsiiyay ardaydii ku guuleysatay tartanka Maxamed Cabdi Ismaan Maxamed Soomaali Burco.